Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal, kuna soo dhawaada muuqaal cusub iyo qiso kale cusub. Saaxiibayaal, qisadeena caawa waxay ka dhacday dalka Masar, waxayna ku dhacday 3 wiil arday ah oo u dhashay dalka Kuwait, laakiin waxay wax ka baranayeen jaamacad ku taalay dalka Masar. 3dan arday waxay ku jireen sanadkooda ugu dambeeyay jaamacadda. Marka saaxiibayaal, waa taqaaniin sanadka ugu dambeeyay jaamacadda ardayga culays badan ayaa saaran, imtixaanaadkii, xafladihii, buugii inuu difaacdo, adiga waxyaabo badan ayaa u yaala. Marka ardaydan inta aysan hoosha galin waxay isdhaheen ka waran haddii aan Iskandariya u aadno xoogaha damaashaad iyo dalxiis, kadibna aan usoo laaban imtixaanaadkeeni iyo howlaha inuu yaalay. Adiga 3dan arday waxay iswaafaqeen inay Iskandariya aadaan oo ay 2 maalin soo joogaan, kadibna ay usoo laabtaan jaamacadda. Marka 3dooda mid ka mid ayaa wuxuu waayay abtigiisa, isaga Kuwaiti waaye, laakiin abtigiisa wuxuu ahaa Masri. Abtigiisu wacay oo abtigiisa wuxuu lahaa meel weyn oo gawaarida lagu ijaaro. Marka wuxuu dhahay, abti, aniga iyo asxaabteeda waxaan rabnaa inaan Iskandariya aadno. Marka wuxuu dhahay, waxaan ka rabnaa gaari. Abtigay wuxuu dhahay, waayahay, ii imaada, aniga ayaa idin siinaya. Adiga way baxeen, abtiga ayay u tageen, gaariga ayay ka soo qaateen, kadib waxay aadeen Iskandariya. Iskandariya waxay soo joogeen 2 maalin iyo 2 habeen. Way soo baashaaleen, waqtigooday soo qaateen, kadib waxay dib ugu soo laabteen jaamacaddooda. Adiga maalintii xigtayba waxay aadeen jaamacadda. Marka maalinta jaamacadda waxaa jirtay muxaadaro la qabanayay. Marka inta ay muxaadarada socotay, ardaydan waxay maqleen ardayda jaamacadda oo isla dhex marayo in Iskandariya uu qarax ka dhacay. Maqlaya, ardaydii jaamacadda waxay isla dhex marayeen Iskandariya ayaa qarax ka dhacay shalay, sidan ayaa dhacday. 3dan arday oo shalay Iskandariya jirayna way yaaban yihiin oo iyaga ma arkin wax qarax Iskandariya ka dhacay, waxaasna ma arkin. Ardaydii waxay ku dhaheen, idinka maxaa ka sheekeynaysaan oo Iskandariya anaga ayaa shalay jirnay, wax qarax ka dhacayna ma arag ee sida wax u jiraan. Ardaydii waxay dhaheen, war Iskandariya qarax ayaa ka dhacay, weliba waxaa la qarxiyay kaniisad meesha ku taala, sidaa iyo sidaan waaye. Adiga meeshii waxaa ku dhamaatay muxaadaradii. 3dan ardayna ayagoo yaaban ayaa waxay usoo laabteen xaafadooda. Macnaha waxay ka yaaban yihiin magaaladii ay shalay jireen ayaa waxaa la dhahay shalay ayuu qarax ka dhacay. Shalayna iyaga ayaa jirayba wax qarax ay arkeen ma lahan. Adiga ardaydii ayagoo yaaban ayaa xaafadooda isaga soo laabteen, kadib waxay dirsadeen casho. Marka intii cashaday u maqan tahay oo aan loo keenin, ardaydan waxaa soo wacay nin Masri ah. Ninkii ayaa soo wacay, marka waxaa ka qabtay mid ka mida ardayda ayaa ka qabtay, hallow, salaamu calaykum iyo warana. Adiga markii la salaamay kadib, ninka Masriga wuxuu dhahay, waxaan idin arkayuu dhahay in aad shalay gaari ijaarateen oo magaalada Iskandariya aadeen, maasha Allah. Marka wiilkii wuxuu dhahay, haa, sax waaye, oo gaari ayaan ijaaranay, aniga iyo 2deeda saaxiibna waxaan u baxnay dalxiis, maxaa jira? Marka ninkii wuxuu dhahay, waxaan idin hayaa course free ah oo la idinku baraya sida gawaarida loo wado iyo waxyaabaha. Kadib wiilkii wuxuu dhahay, may waa mahadsan tahay, anaga ma u baahniyo hadda in aan barano sida gaariga loo wado, oo horey ayaan usoo baranay. Kadib ninkii wuxuu dhahay, maya, caadi waaye, wax iska free waaye, iska qaata kaale. Wiilkii wuxuu dhahay, maya, wuxuu dhahay, anaga faadi manihi, sanadka ugu dambeeyay jaamacad ayaan maraynaa, anagaaba imtixaanaad iyo waxyaabaha noo yaale, haddi iyo in aan gaari baran waxaas mashquul maku noqon karni, niyo waa mahadsan tahay, waa kaa. Marka wiilka markuu sidaa dhahay, ninkan Masriga ah oo wiilashan soo wacay, xooga hadalkiisu wuu isbedelay. Wuxuu bilaabay in uu ardaydan hadal ku adkeeyo. Kadib wardhan wuxuu ugu soo koobay, ma ii imaanaysiin mise aniga ayaa idin imaanayo? Wiilkii wuxuu dhahay, see camal? Kadib wuu ku celiyay, wuxuu dhahay, ma ii imaanaysiin mise aniga ayaa idin imaanayo?
ardaygii ninkii la hadlayay wuu cabsaday, isla markii telefoonku ku jiray zam. marka waxay isdhaheen ardaydan qofkan sidaan u hadlaayo ama qof ni dhibaayo waaye ama qof tuug oo burcad ah waaye. adiga ardaydii markay telefoonka damiyeen, ayaga dhan waxaa galay argagax, cabsi, in ay isweydiiyaan qofkan wuxuu yahay. iyagoo markii horeba la yaabnaa arrinkii qarax Iskandariya ayaa haddana ninkan ugu sii daray. adiga ardaydii aaday u cabsadeen, way argagaxeen. adiga ma aragtid sida qof shoogay oo kale, sida ay ardaydii noqdeen. kadib ma iswaalin, wiil iyaga ka mid ah ayaa wuxuu wacay abtigood. waa abtigii ay hadaaya ka soo qaateen gaariga. abtigiis ayuu wiilkaa wacay, wuxuu u sheegay in uu ninkaas soo wacay sidaa iyo sidaan uu ku dhahay. kadib abtigu wuxuu dhahay xoogaa ii kaadi, aniga ayaa idinku soo warcelinayo. adiga xoogaa kadib wiilashii waxaa soo wacay abtiga. kadib abtigu wuxuu dhahay ma taqaanin qofka idin soo wacay. wuxuu dhahay waa nin u shaqeeya dowladda, wuxuuna qaabilsan yahay dhanka iyo amniga. macnaha nin waxa waaye dhanka iyo amniga, dambibaarayaasha iyo waxyaabaha qaabilsan. marka wuxuu dhahay nin nooca ay idin soo wacay. ninkan wuxuu dhahay waxaa loo diray inuu soo baaro cidda ka dambeysay qaraxii ka dhacay Iskandariya. marka ninkan wuxuu ka shakisan yahay qaraxa in ay ka dambeeyeen arday khaliiji ah. ardaydana waa idinka. mana saaxiib yar hadalka idin soo koobo. ninkii hadaaya ardaydan soo wacayay oo dhahayay waxaan idin hayaa course free ah oo aad ku baranaysaan gaari wadad iyo waxyaabaha. ninkan ardayda wax course u hayay ma lahan, kaliya wuxuu rabay ardayda inuu gacanta ku dhigo. sababtuu u raban waxay tahay ninkan wuxuu ka shakiyay ardaydan inay iyaga ka dambeeyaan qaraxa. markuu abtiga intaa u sheegay ardaydii way sii walwaleen, way sii murugoodeen, wax badan way cabsadeen. kadib ardaydan waxay go'aansadeen in ay safaaradooda aadaan oo ay safiirkooda arrintan u sheegaan. laakiin xilli haween ah waaye, meelay aadayan ma lahan, waa in ay sugaan subaxii. marka ardaydan waxay dherarayeen int ay qoraxda ka soo baxdo, sababtoo ah aaday u cabsanayeen. waxay isdhahayeen goormee la idin imaan doonaa, goormee la idin qabanaa oo xabsi la idin geenaa. adiga way cabsanayeen. ugu dambeyn waxaa beriyey waagii, waxay aadeen safaaraddii. xafiiskii safiirka ayay galeen, way fadhiisteen ilaa uu safiirka soo galay. kadib markuu safiirkii soo galay, arrintii ayay u sheegeen in ay meeshan arday ku yihiin oo haddana lagu tuhmayay in ay arrinka geysteen. kadib safiirka maasha allah wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan. wuxuu dhahay ii fadhiistaa. kadib safiirkii wuxuu la xiriiray ninkii ardaydan la soo hadlay. markuu safiirkii ninkaa wacay oo ay sheekaysteen oo ay wada hadleen, marka xoogaa waxaa muran dhex maray safiirka iyo ninka askariga oo loo xil saaray inuu soo baaro cidda ka dambeysay qaraxa. marka xoogaa way murmeen, wax badanay wada hadleen. marka askariga wuxuu dhahay aniga ardayda ayaa ka shakisanahay, ardaydan waa in aan soo xiraa si aan u baaro. marka safiirkii wuu ka diiday, wuxuu dhahay maya, ardaydan anaga ayaa mas-uulka ah, mas-uuliyadoodana anaga ayayna saaran tahay. haddaa rabt inaad baaratana waa kan halkan imo, halkan ku baaro, waa kan. marka wuxuu dhahay ma jirta laakiin inaan ardaydan kuu dhiibo oo aad soo baarato. mayuu dhahay waa kaa diiday. waxaan wuxuu dhahay arday waaye, adigan wax kugu jira waxay tahay tuhun. marka wuxuu dhahay imow ardaydan baaro, kadib wax walba waa okay. adiga sidaa ayay markii hore ku kala baxeen safiirka iyo ninka askariga ahaa oo loo soo xil saaray inuu baaro cidda ka dambeysay qaraxa. kadib ardaydii ayuu dejiyey. wuxuu dhahay isdejiya, aniga ayaa idin joogo. inta aan aniga joogana cid wax idin geysan karto ama idin soo xadgudbi karto ma jirto. wuxuuna dhahay inta uu kiiskiina ka dhammaanayo safaaradda ayaad joogeysaan oo halkan ayaad ku jiraanaysaan. kadib ardaydii waxay dhaheen anaga waxaan leenahay imtixaan ayaa hadda inoo socdaa. waxay dhaheen sanadkii ugu dambeeyay ayaan nahay, imtixaanka ma ka baaqan karne, maxa xal ah. kadib safiirka wuxuu dhib malahan, qof idin waardiyeeya ayaan idinku darayaa
oo jaamacad idin geeya, marka imtixaankiina soo gashaan aad soo laabataan. adiga sida ayaa dhacday, waardi ayaa loo sameeyey ardaydii. marka subaxii way baxayeen, waxay soo galeen imtixaankii. imtixaamaadkooda markay soo dhamaystaan waa la soo celinayay, oo habeenkii waxay kusoo hoynayeen safaaradda. fiiri ardaydan sidii loogu taxadirayo oo loo ilaalinayo. ujeedaa sababtoo ninkan safiirka ah, iyaga ayuu meeshan u fadhiyaa, ardayda, dad kale muwaadiniinta ah. adiga wax walbo qofka wadankiisa u baahan inuu u qabto ayuu meesha u fadhiyaa. fahant? marka adiga ardayda sida ayay ku socdeen maalinta koowaad, maalinta labaad, maalinta saddexaad, ilaa ay maalinta u dambeysay ay imtixaankooda ka dhamaystaan. subax walba waa la wadaayay oo waxaa la geenaya jaamacadda. markay imtixaanka soo galaan waxaa lagu soo celinayay safaaradda si amnigooda loo sugo. adiga ardaydii markuu imtixaanka u dhammaaday, ardaydii wili murug ayaa hayso, sababtoo arinkooda wili meel uusan korin, wax qof soo hadloosa ma lahan. kiiskan ardaydan waa lagu heeyaa iyo ma lagu heey, cid soo dhehaysa ma lahan. adiga waxay arintii sida ahaataba 3 maalin miya 4 maalin kadib waxaa soo wactamay askarigii. marka askarigii wuxuu sheegay in la helay ciddi ka dambeysay qaraxii ka dhacay Iskandariya. wuxuu dhahay waa helnay qof ka dambeeyay qaraxii ka dhacay Iskandariya. wuxuuna dhahay ma ahan ardaydan, wuxuu ahaa nin kale oo xitaa asalkiisa aan kaliiji ahayn. wuxuu dhahay nin wadamada kale kasoo jeeda ayaa waxaa ka dambeeyey, isagana gacanta ayaa lagu dhigay. wuxuuna dhahay ardaydan tuhun ayaa noogu jiray maahane, waa arintaa ma aysan ka dambeyn, wax dembi ay leeyihiinna ma jirto. sidoo kale askarigan ardaydan wuuba iska iloobay, oo wuxuu iska iloobay in uu ardaydan tuhun marka hore tuhun ku jiri maho, ardaydan warkooda iska iloobay bis. baaritaankiisa iyo wixiis kale ayuu galay, maca salaam. ardaydan waxa ugu dambeysay maalintii ninka safiirka isla hadlayn ayaa warkooda ugu dambeeyay. warkooda dhan wuu iska ilaabay, ayaga iska murgayay mahane. askarigii arintooda wuu ilaabay. ugu dambeyn waxaa soo baxday in aysan arintan iyaga ka dambeynin, oo uu qof kale ka dambeeyo. marka saaxiibayaal, kadib ardaydii sida ay u farxeen. marka saaxiibayaal, guud ahaan sheekadeena caawa halkan ay ku eg tahay. laakiin sheekadan maxaan ka baran karnaa? aniga ahaan waxaa isleeyahay waxa ugu weyn oo ayna ka baran karno waxay tahay qaabka uu ninka safiirka kula dhaqmay ardaydan. waa taqaaniin safaaradaha qaar ama safiirada qaar qaabka u dhaqmaan. haddii maanta adiga oo wadan kale jooga safaaradaada aado, waxaa laga yaabaa qofka safiirka markaa wax weydiisato ama arin markaa u bandhigto in uusan wax kuu qaban, in uu arintaada wax dhan uusan kasoo qaadin. wax badan way dhacdaa, annaga oo Soomaaliya ayaan inta badan nagu dhacdaa, ma fahmino. wadamada kale way naga roon yihiin, laakiin anaga inta badan safaaradaheena waxa waaye tacbaan. safiiradeenan waxaa laga yaabaa in aysanba joogin meeshay safiirka yihiin, inaysanba joogna laga yaabaa. marka xagga adiga ama ku dhibaato ama si kala noqo, adiga ayay ku taalaa. inta badan dhif iyo qaliil waaye in helno safaarad ama safiir wax noo qabto, ma fahanti. laakiin ardaydan fiiri safiirkooda, ninka safiirkuwaa siduu u garab istaagay, siduu ardaydan ugu taxadiray, siduu garabkooda u noqday, iyo sida uu ugu difaacay askariga. xaquu u lahaa xataa inuu imaado uu dhaho ardaydan aniga waa wada, laakiin asiga ugu difaacay. jaamacadda markay aadayeen wuxuu u sameeyey waardiyo ilaa imtixaanka ay ka dhameeyaan. meesha ayuu ku hayay, waxay cunaan, noloshooda dhan isaga ayaa markaas mas-uul ka ahaa. taasna waxa waaye waajib isaga saaran, sababtoo muxuu safiir u yahay isaga. wuxuu safiir u yahay in wadankan saas u joogo, oo markaas wadankaas wixii jooga oo arday ama dad kale oo dalxiis u imaaday, qof kale oo wax kale u joogo, wixii markaasi ay ugu baahdaan in uu qabto. marka anahan waxaas leeyahay safiirkan wuxuu ardaydan u sameeyey iyo qaabku kula dhaqmay ayaa isleenahay qisadan xoogaha waynu ka baran karnaa. safiiradeenan waxaa mudan in ay ku daydaan safiirkan oo kale. marka saaxiib, adigana waxaa qisadan kaaga soo baxay ama aad ka fahantay ama aad isleedahay waan ka baran karnaa, dhanka commentiga inoogu soo qor. marka saaxiibayaal, wax bayaan sheekada idin dheereen. sheekadeen ama muuqaalkeena caawa inaga intaa.
inta aynu muuqaalka dib u kulmi doono. amaano alle. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.